maanta farxad weyn noo ah runtii inaan ilaahay fadligii nabad ku nimid caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho oo aan uga sii gudbayno haddii Ilaahay yiraahdo shirka loo ballansan yahay bisha 16 iyo 17 Brussels waddanka Belgium halkaas oo rabno inaan kaga qayb galo shirka loo qabanayo ummadda Soomaaliyeed hadday ahaan lahayd rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo guddoonkeeda oo dhan saaka u socdo guddoomiyaheedina uu hogaaminayo haddii ay ahaan lahayd dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo bulshada rayidka inteeda kale ayadoo shirkani uu daba socdo shirkii hore sanadkii hore bishii May lagu qabtay magaalada London ayada oo shirku laba waji uu ka kooban yahay wajina waa wajiga maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka khuseeya inta badan oo sekuuradka ku saabsan iyo dalka sida uu u soo kaban lahaa u horumari lahaa xagga ammaanka wajiga labaadna waa wajiga ku saabsan dhaqaalaha iyo horumarinta shaqo abuurka iyo in la dib loo dhiso kaabayaashii burburay 20 sano ama 20 dhowrkii sano inaga tagtay runtii waxaa la soo gooyay shawd dheer baa la soo gooyay oo ummadda Soomaaliyeed iskeed ay wax u qabsanayso tanna waxay la mid tahay inay horay loo sii socdo ama horay loo sii wado iskaashigii iyo wax wada qabsigii ayadoon mar walba ku boorinayno annaga rug ganacsi Soomaali ahaan ummadda Soomaaliyeed inay iscafiso gacmaha isqabsato waxyaabaha yararka indhaha in laga laabto ay u baahan tahay indhaha ay ka laabtaan waxay in badan Soomaalidu runtii ay ku fiican tahay oo ay kaga fiican tahay wadamo fara badan oo Afrika waxa in badan lagu soo celiyaa waa hal qowmiyad oo hal luqad iyo hal diin iyo hal midab leh inay ay taas macna u sameeyaan oo kuwaan isku luqan ahayn isku dhaqan iyo isku diin ahayn aynu ka sii hoos marno runtii waa arrin ihaana ama arrin aan fiicnayn waxaan Ilaahay uga rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed sanadkiisa kale barwaaqiya bashbash inuu ku gaarsiiyo ayaguna ay iscafiyaan oo isu tanaasulaan oo midba mid uu xaq dhowro aad iyo aad baan u salaamayaa Jubaland TV magaalada Muqdisho